نبينا محمد. عن هراء واحد إن الجيران لما توصل wargeed kaas oo lagu hadlayo in diinta islaamka la baabi'iyo sida oo kale 22 bisha 12 waa habeenkii Jimcaha 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda Yuhuudda oo loo yaqaan BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kirishtaan ah. waraysigu wuxuu u dhacay sida soo socota warku waa war aad u xun marka dhageysta ninka xukunkiisa oo mantiin doona haddii Rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi gaalka ka socda qolada Kirishtaanka magacaaga maxaa la yidhaah wuxuu sheegtay in bulxan la yidhaahdo iyo magac noocaas u eg. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi xaggeed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu yidhi waqtigee baa tagtay dalka Yuhuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid oo ka soo baxday 1987 ilaa 1988 sidaas ayuu sheegay. waxaa sheegay saas ninkii gaalka ahaa. wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yidhi markuu sidaa ku yidhi hadda ma waxaad haysataa diinteed haysataa wuxuu ku yidhi gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa. wariyaha idaacadda Yuhuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyo wuxuu ku yidhi xisbiga aad hogaaminayso ujeeddadiisu waa maxay xisbigaas oo ah Kiristiyaan oo xisbi Kiristiyaana oo ka jira Somaliland. wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo Somaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa. sidaas ayuu yidhi ninka ka socda qolada gaalada ah. wariyaha idaacadda Yuhuudda warka ayuu ku soo celiyey wuxuuna markaa weydiiyey imise ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad. gaalku wuxuu yidhi Somaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanaha 1 nin ayaanu leenahay. sidaas ayuu gaalku ku jawaabay. waxaana u fiirsan hadalka uu ninka gaalka odhanayo wuxuu ninka asagaa ku yidhi oo ma waxay haysataan kalsooni badan haa buu yidhi maxaa yeelay markaan ugu yarana qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood. sidaas ayuu u sheegay. bal waxaa jira 350 carruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka Yuhuudda lana baro diinta Yuhuudda. idaacadda Yuhuudda wariyaheedu wuxuu yidhi oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta Yuhuudda gaalkii wuxuu yidhi haa diinta Yuhuudda ayay haystaan. wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyey waddanka Yuhuudda. gaalku wuxuu yidhi carruurtaa waxaa gacanta ku hayda gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaano Luul ayaa gacanta ku haysta oo maamusha taradiyadooda iyo waxooda. waxaana si dhaba loo bari doonaa diinta Yuhuudda dibna waa loo celi doonaa. Somaliland waxay noo diideen buu yidhi inay naga qayb geliyaan dawladda. gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay. saasaa meesha ka muuqanaysa waa naloo ogol yahay. Somaliland waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xukumi doonaa. sidaas ayaana halkaa ka soo caddaatay. wax badan bay yidhaahdeen Somaliland waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna Yuhuudda ayaa loo goynayay ayay ahayd. waa soo caddaatay. warar badan baana soo bixi raba. gobollo badan ayaan maqalnay in Yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale. waxaan halkaa ka soo caddaatay Somaliland inay arrintaas ku jirto meesha. waxaa ninka isaga uu sheegay oo gaalka ah markuu arrintaa ka warramayey magacyadiina miyaad bedegteen ayuu yidhi wariyihii idaacadda Yuhuuddu. wuxuu ku yidhi haa magacyo xunxun oonan sheegi karin magacooda ayuu sheegay. ninka isaga ah wuxuu yidhi oo wariyaha idaacadda Yuhuuddu xibna miyaad ka tihiin dawladda Somaliland wax ma ka tihiin wuxuu yidhi gaalku haa weliba golaha wasiirada iyo baarlamanka ayaan dad badan ku leenahay. wa ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaaso. Somaliland sidaas ayaa jirta aynan doonaynaa inaanu ku yeelanno saldhig iyo meel hagaagsan ayay yidhaahdeen waqooyiga Hargeysa oo kale. sida oo kale waxaa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xiran oo ka shaqaynaya ayaguna inay wax noocaas oo kala sameeyaan dad badanna gacanta ku haya oo ku dhashay Galgaduud gobolka loo yaqaan say ayaguna sheegteen. meesha waxaa idinkala soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca. shacab Soomaaliyeed 100% muslim baanu nahay 100% diinaanu ku dhalanay. maxamed iyo cali baana la yidhaah Luul baa hogaamin. Somaliland hal la gaarsiiyo in sidaa loo dan leeyahay. waxaa kaloo loo sii sheegayaa in ay jiraan dad badan oo Ingiriiska jooga oo Somaliland u socda oo ayaguna saas oo kale u socda.
waxaan kala ogaanay inay jiraan dad badan oo aqoon-yahana lagu sheegayo oo ka imaanaya yani Australia qayb koox yar oo joogta iyo Maraykanka oo u soo socda Soomaaliya gudaheeda gobollada dhexe iyo Somaliland dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxaa kaloo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dhib badan geystaan waxaa kaloo la sheegay inay jiraan dad ayaguna noocaas oo kale ah oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka Buuraxaawo meel yani la yidhaahdo beled xaawo agihiisa waxaana lagu tala geshan yahay in la laayo niman badan oo culimo ah oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan saraakiil banaanka ka soo socota ayaana ku tala jirta waxay kaloo caddeeyeen inay jiraan 50 nin oo ugu tababartay ninkii hore dhibka badnaa inay la dagaalamaan 100 qofood oo 50 ku doonayaan inay dalka ku laabtaan si wadaadada wax looga qabto markii arrintu waa sidaa ama indhaha ka laabta ama ha ka laaban idinka garanaysaan raggaas oo tababar ku maqnaa qaarkood markii hore qaarna ay mar damba baxeen marka dadka noocaas waa dad gaalo ah oo aan ilaahay agtiisa waxba u oolin yani marka mas'uuliyadda meesha taalla waa maxay Soomaalida waxay tiraahdaa habartii calaan dhashay ceelkiiba wax laga xumaayaan calalxuma ku dilin oo aan dib ku soo gaarin adiga soo garanmaysid marka yani ummaddan ayada inay balaaya ku dhacday wadaadadooduna ceelkiibay caga xumaayeen waxba weyla ayihiin odayaashooduna garseen bay halka u fadhiyaan oo qaad bay cunayaan intoodii oqoon yani lagu sheegaya inay wax barteen xagga maadigana waa intaa ay u jeeday in la qaybsado gabanla yuhuud noqdeen gabanla ay buudiyo noqdeen gabanla ay meel kale ka imaanayaan xaaladda sidaa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekeynaya ahlu kitaabka dadka lagu sheegayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam way gaaloobeen dadkii yidhi allah waa masiixii ina maryamo ahaa dadka alla ku sheegay way gaaloobeen waqaala almasiix yaa banii israa'iila acbudu allaha rabbii wa rabbakum inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wamaa lidaalimiina min ansaar allah subxaana wa tacaala haye masiix wuxuu ku yidhi war alla caabuda ee ma uusan dhin aniga ay caabuda dadka masiix oo daba socda oo nuucaa odhanaya waa gaalo aan ilaahay agtiisa waxba u olin sidaa oo kale waxaa ka dhacday magaaladatan aanu ku noolnahay niman islaam isku sheegaya inay istaageen ayagoo ka hadlaya kirismaska oo yidhahdeen xoolaha kirismaska loo qalo waa la cuni karaa oy ku mateleen bisha mawliidka xoolaha la qalayo waana mawluudkii maxamed oo kale ka rumaysan yahay tahay kirismaska xun ayay yidhaahdeen sidaa dad waaweyn oo aqoon-yahano iyo culimo lagu sheegayaa ku hadlay waxa noocaasa ayaanuna dhex joogo islaam aanu saa ku nahay anu saa ku guulaysana marka khayr baanu ku gaarno xoolaha maxaa ka macnaa so adigu ciise ma aaminsanid ciise maxuu dhibayaa ciise waa nabiye waa kida ciise waa nabi ilaahay oo xaq ah laakiin waxaa masiixiya aaminsantahay ciise ma ahan yani ninka aaminsan diintaasaan haysana waa gaal allah muxuu yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu talaata وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفضل صدق الله دك يعني إله وسدح إله متك من الدك اللي قالوا الله هو معبود حقا أو كليئة هذا يوحى كهري ويان أي كل واغيان عذاب أليم أو جرك اللحويات طابانيا عذاب أليم أو جرك اللحويات طابانيا انت مسيحية دور ديتا هي انت تاجرسن هي انت الدين الان تأسعطا هي انت حكمك الديمقراطية دونيتا هي انت الدورسة أسعبينيتا هي انت حسبية للدندونيتا هي انت حسبية لبنا العكس كبحينيتا هي ان الله انت ذكى صوت دورانيتا كل قولوا كريستان ان الهي اكتيسا وحبا اولين وانا كفار حدو الله وانا دديري كتابك على كونك وحباتك معهن وانا كنت فولي وحنا كسف وبدتك ما أنت جوجا آيات الله يقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل إلهي دينتي سوى حبتك ما يجيب أهل الكتاب لويه حتى تقيموا التوراة والإنجيل إلى التوراة والإنجيل كده يهيلوا توجينيتان الأبتي سوى حبتك ما أنين حتى أن نقيموا كتاب الله إلى أن كتاب كان الله سيدة أولي أسوسينينه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا دين سألين توسيلان وغير وقتان وقضى قالنتان وأن نكوك لا تجين بها الدين لا يذكر قدقين كاسو ربنا نقوله سبحانه وتعالى وحاك يانا لطافنا يا إذا على يهود وإذا على القرآن كالنوعة ذكا نبو ويدل هكتان إذا على يهود با إسكاله دقالاء أدونك يهود با قعنت كوهيسا ونوبتا ويعني تعليمت أدونك يهود با قعنت كوهيسا يعني وكالة تعليمته وأن المهنة أدرنه أما إسكولة يونيسكا وحيكو غرين مجلدة يعني وحاويا مركز جلاسكة